dalka aynu saaxiibka nahay ee Turkiga wasiirada xubnaha labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya odayaasha siyaasiyiintii hore iyo oday dhaqameedyada marwooyin iyo mudanaya waxaan filayaa caawa sidaynu dhammaanteen u xusuusannahay markii gumaysigii European ay Afrika inay qaybsadeen halkankoodii ay soo galeen Soomaaliya waxaa loo qaybiyey 5 laba qaybood Ingiriiska qaatay midi waa caawa oo aynu xusayno gobolladii waqooyi ee la odhan jiray British Somaliland Protectorate midna waxa weeye NFD labada Ingiriiska qaatay Talyaanigu wuxuu qaatay koonfur oo Italy Somaliland la odhan jiray Faransiiskuna wuxuu qaatay Djibouti French Somaliland boqortooyadii xabashida Menelik qayb buu qaatay Soomaali galbeed hase yeeshee intaa kuma ekayn Soomaali galbeed 47 dagaalkii labaad ee adduunka kadib qayb kale ayaa lagu wareejiyey boqor Hayle Selassie 56diina waxaa lagu wareejiyey qayb kale oo markaa la odhan jiray Hawd and Reserve Area dadka Soomaalida ee sidaa loo qaybsaday qaybtii loo bixiyey Somaliland waqooyiga ayay noqotay caawa habeenkan aynu u dabaaldegayno in ay xorriyaddii ka qaataan gumaysigii Ingiriiska waa qaybtii ugu horreysay ee xorowda dadkii Soomaaliyeed iyo dalkii Soomaaliyeed ee xorriyaddeeda heshay hase yeeshee dadka waxaan aad iyo aad ugu ammaanayaa halkii yacni way noqon kareen dawlad gaar laakiin waxaa kala weynayd oo kala weynaatay midnimo Soomaaliyeed iyaga oon ma suugin arrintaa ayay toos 1 Julaay 1960kii ay keeneen halka waxaan isleeyahay oon aad iyo aad u aaminsanahay dadkaasi inay wadaniyiin yihiin oo ayna dhibaato Soomaaliyeed inay u horseedaan ayna rabin laakiin sidii raggii iga horreeyey Cali iyo Suldaankii iyo odayaashii iyo wasiirkii iyo dhammaan intii iga horreysay ammaanta ay soo jeediyeen ayaan soo jeedinay waxaanan isleeyahay oon aad iyo aad u aaminsanahay haddii ay keeneen oo ay soo qaadeen waxaynu rabnaa midnimo Soomaali ma kala maarmi karto cid gaar isu taagi kartaa ma jirto faa'iiday leedahayna ma jirto China mitaal u soo qaadanaya adduunka waa dadka ugu badan 1 bilyan iyo 500 milyan ayay sii marayaan waxaana weeye waa hal dawlo waxaana lagama maarmaan wax kastaba waxaan qabaa meel walba dadka ugu badan dadku markuu badan yahay wuu wax soo saar badan yahay aad iyo aad buu wax u soo saaraya leesh wax soo saarku waa awoodda dadka sidaa la ajligeed
waxaan qabaa inaynu midnimadeennii sidaanu soo celin lahayn ee aynu raalligelin isaga bixin lahayn ee aynu isu kaashan lahayn inaynu samayno dalkeennu waa qani shaki kuma jiro waxaanan arkayaa maanta caalam badani inay u soo baratamayaan oo kala firidhkeennan la rabo cid waliba inay ka faa'iidaysato wiil dhallinyara oo Soomaaliya hees uu hadda tiriyey waxa weeye malaha sanad ka hor ayuu wuxuu leeyahay in dalkeennu hodan yahay weliba dihin yahay dabayl udubku siiso diiran leeyahay dalxiiskana ku wacan yahay dunidu way ogsoon tahay waxaa dalka keenaa waxaa dalka keenaa nabadda looga digayaa ee faradgelinta dibadda ah aan laynooga daynayn inay tahay daraaddood miyaynaan dareemayn waxa weeye caalamku wuxuu u socdaa khayraadkaasuu u socdaa innaguna waxaaba weeye reer hebel sidii hadda loo sheegay ee cid waliba calan reer hebela taagatay ayaynu u taagannahay wallaahi oo bilaahi waan dhaartay inaan qabiil dawlo lagu noqonayn wax kastoynu isu sheegno inaan qabiil dawlo lagu noqonayn waxaan sidaa u leeyahay qabiil waa dhaqan ee siyaasad ma aha dawlana waxay ku dhisantaa afkaar siyaasadeed bay ku dhisantaa laakiin reer hebel kuma dhismayso soomaaliyey meel kastoo aad joogto waxaad u baahan tahay inaad qabiil bini aadamku taariikhdu ka faa'iidaystaa cartaynu ka soo bilowno qabiil waxa waa dawladdii shanaad baan filataa hadda joogtaa ee qabiil lagu dhisay waa degilaanahay oo maxaa ugu wacan haddee waa qabiilna wax ka dhaxeeyaa ma jiro siyaasadii kama dhaxayso ma ka dhaxayso iskuna shaqa maaha waxa weeye siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaan u soo jeedinayaa inay fikirka maskaxda ku hayaan dhallinyarada Soomaaliyeed ogaada qabiil idinma anfaco siyaasiga kursiga ku raadinaya ee idin kala fogeynaya maya dhaha diida ka baxa gaariye wuxuu yidhi uf qabiil anigaa leh wuxuunbaa ku adeegtaa qof iskii kartidii isu taagi karayn isagoon cid kula tirsan aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsan Soomaaliya ha midowdo